mid ka mid ah dhakhaatiirta indhaha kuwooda ugu caansan, oo ahaa dhalinyar da'diisu ay tahay 30 jir oo aan weli guursanin, maxaa yeelay waxa uu rabay haweeney leh sifooyin gooni ah, taas oo ay ugu horreyso cabsida Alle. Markii uu diyaarsaday lacagtii uu ugu talagalay guurkiisa, muddo 5 sano ah ma uusan helin gabar la gaar ah sifooyinka uu doonayo. Mar walba waxa uu Alle ka baryi jiray in uu waafajiyo gabadha uu ku haminayo. Mid ka mid ah safarada uu sida joogtada u aadi jiray ayaa waxa uu ku aaday waddan ku yaalla qaaradda Aasiya oo Muslimiin ay ku nool yihiin. Waxa uuna la safray koox dhakhaatiir ah. Dhakhtarkii waxaa loo dhisay meel teendho ah oo uu ku daweeyo dadka ka cabanaya xanuunada indhaha. Waxaa u yimaaday wiil dhalinyaro ah oo ay la socoto walaashiis. Waxa ay ahayd walaashiisa qofka doonaya daawada. Wiilkan dhalinyarta ah waxa uu ka meermeerayay inuu dhakhtarka u geeyo walaashiis, laakiin ugu dambeyn waa uu u geeyay. Waxa uu soo galay dhakhtarkii, waxa uuna u sheegay xaaladda ay walaashiis ku sugan tahay. Markii uu dhakhtarkii u soo dhowaaday gabadha, waxa ay bilowday in ay ilmeyso, ayna jarayso cabsi aawadeed. Dhakhtarkii waxa uu maleeyay in gabadhii ay la oynayso xanuun haya aawadeed. Waxa uuna weydiiyay wiilkii la socday sababta ay u oynayso walaashiisa xanuunsan. Waxa uuna ku jawaabay, lama oynayso xanuun haya aawadeed, waxa ay ka oynaysaa in indhaha laga duubi doono oo laga yaabo in ay dheeraato daaweynta indhaha, intaasna aysan akhrin doonin Qur'aan markii ugu horeysay nolosheeda. Xalay ma aysan seexanin, murug ka haysa in aysan akhrin doonin Qur'aanka. Dhakhtarkii markii uu u soo dhowaaday gabadha, waxa ay weydiisay, Muslim miyaad tahay? Waxa uu ku jawaabay, haa. Waxa ay ku dhahday, haddaba waxaan ku weydiin doonaa su'aal. Alle ayaan kugu dhaariyay, iga ballan qaad inaad uga jawaabi doonto si sax ah. Waxa ayna weydiisay, ma la igu samayn karaa qalliin iyada oo aan la i suuxinin? Dhakhtarkii waa uu dhoola cadeeyay, waxa uuna u sheegay in arrintaas ay tahay mid aan marnaba dhici karin. Uusan jirin qof bini'aadan ah oo awooddaas leh. Laakiin waxa uu niyadda ugu dejiyay in waqtiga ay suuxsanaan doonto uusan ka badan doonin 6 saacadood, kadibna ay awoodi karto inay sidii doonto u akhriso Qur'aanka. Waxa uuna u sheegay in Qur'aanka uu ilowsiin doono xanuunka. Kadibna waxa uu weydiiyay, Qur'aanka ilaa intee ayaa xifdisan tahay? Waxa ay ugu jawaabtay, Alxamdulillaah, si kaamil ah ayaan u xifdisanahay. Waxa aan isbuuc walba mar dhameeyaa akhrinta Qur'aanka. Waxaan ku dhaartay Allihii mooye Alle kale uusan jirin. Haddii aysan jirin laba arrimood, qalliin kuma aan sameeyin indhahayga, oo waxaan ku sabri lahaa xaaladdan aan ku suganahay. Akhrinta Qur'aanka Kariimka iyo adeegidda waalidkayga. Dhakhtarkii waxa uu farxay farxad aan la qiyaasi karin. Waxa uuna ku guuleystay qalliinkii, waxaana gabadhii indhaheeda laga qaaday caadkii. Waxa ayna dib u heshay aragtideeda. Awoodda Alle. Dhakhtarkii waxa uu ku dhahay wiilkii, maxaa ka wanaagsan haweeney ku xiran Alle oo daacadnimo iyo wanaag u sameynaysa Alle dartii, kuna xirta tilaabo walba oo qaadayso nolosheeda Alle. Wiilkii waa uu dhoola cadeeyay, isagoo ku faraxsan hadalkii uu ku yiri doctor-ka, kaas oo sidoo kale ku yiri, Alle ayaa mahad iska leh, walaashaa waa ay fiicnaatay, Alle doonistiisa iyo awooddiisa aawadeed. Waana mid hadda wax walba arkaysa. Waxa uuna ka codsaday in ay ku abaalmariyaan in gurigooda uu ku soo cabo koob qaxwo ah markii uu shaqada dhameeyo dabadeed. Wiilkii waa uu soo dhaweeyay arrintaas. Markii ay aadeen guriga,
Dhakhtarkii waxa uu ku dhahay qoyskii ay ka soo jeeday gabadha. Waxa aan raadinayay muddo 5 sano ah gabadh wanaagsan oo aan guursado, mana helin. Waxa aan ka helay idinka qoyskiina. Waxa aan rajaynayaa inaad igu raaci doontaan inaan guursado gabadhiina. Waxaan idin furi doonaa dalabkiina, dalab kasta oo uu noqdaba. Wax walba waa wax aanay jirin markii loo fiiriyo diamond-tan qaaliga ah. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.